ورياه إلا شري قارب هذا الكرواي قريها هوصل لقحد أنا عشان طبعا طبعا وقاطع طبعا سنة أو طنبع مدحوينا كوكو مالله أنا معد بنو توجنا عد أضن طاهو صع ترى نومات كني طبعا طنبع هاي سماش وحين عنا تدكس كنت ريوان كرهي سنة ورا ما كان عبد الرحمن يراته ما وين يلبلتي لحلاتك وين يلبلي لحلاتك يشوف لحلاتك ستم لحلاتك كورنا وين يلبلي على مدحوينها هيك كوكو مالني عبد الرحمن محمد عبد الله إلا حال ما صحن إن هذا يركب مدحوينها هيجي ها طنا صاحبنا سوود هالكني توحنا لي وحن شيء كربا قرن مايو رئيس مال أنا هدي جبني ما إن أي متيستان طبعا سنة هالكاسة دسوي شوقي أنا بقول لك إيه جاي وايسكو قلوب من هنا أنا عبد الرحمن عبد الله لكن وحن أفري صدق سنة يبوهني أيو ما أنتم مدحوينها سنة كي أو بلوجد ما يجي أيو إيه كاني هاي تيستي هودي أيام با هاي هودي يو نصيب بس حسن أنا يقول افتضي هودي نصيب والبارح حيصل رافي وحن نستع وحن نسوي تاجنا عبد الرحمن أحمد علي يو ما أنت اعتراف كنا ونسوي تاجنا حرين تدل كنا ونسوي تاجنا ونصيبك يو هوضة ومطو إسرائيل تهاي وقتها ومطو حكومة نقطة وانسوها الجميع يوم حيبان هانشري يلي يحبان هانشري يوم مجاهد بان هانشري وحاسي أقوان يو حلس كل رافع هي إلى هاي قف قصيه أيها كل رافع هذه أيام بالو كل هرية هذه أيام كإلهي ببحية أدو ساس كنت قارنه علم أدبرت من ما هو من إلهي بحيه أنا ما دحنا خير كله بلونس ما دحني مدوده dadka waxay dheeriin wax la hoodo ninka habrius ciidan ku kaxaysta ma soo jabo meesha loo dhiibaa ma hooydo ma hoogto ma baroorato Cabdiraxmaan Tuurba ninkii SNM ku soo halganka badnaa hogaamiyaashooda wuxuu ahaa Allah naxariisto madaxweynaheenii hore Axmed Maxamed Siraahi ee musabix ka horeeyay shan sano ayuu madaxweynaha gudoomiyay SNM soo ahaa waxaan ustaa Cabdiraxmaan Axmed Cali SNM muhaan jirin ragii qurbaha ka yimid ee dawladda Soomaaliya kamid ahaa ayuu ahaa maalintuu sida u yimid بالقبضة الشركة وينه كسوق قيب قلي إلا طهرتي ما علم تاس تطوب بلود كتب أي طلقي حر نقطي أفكار أنتي سلق لما مسوقه ما علم تيو عبد الرحمن محمد عبد الله حركة قبصتي هل كان إما كان عاوة كحط ليبان هاكريب كتشيدي وحنقول في هركة هو دم كوه هيو ninkaas sida dalku xoriyay kana ninka ixtiraafka keenay noqon doona ma sha Allah hadda dad xalay wax nugu yar baa dhacay waxaan arkay qaar taraha toolaha Cabdiraxmaan Ciro malaanka bacid keeni kara inaan saaxiib noqono abtiraan oo hayba shalay laha moogti saakana waxaan arkay isagoo isdaafacinaya Allah ya kariim waxaan leeyahay bahasha runtaan ku hadlayna dad badani macal dad reer Soomaaliland ayaan ma ogtahay ilaa xalay suuq oran aan wax badan baan eegaa boqolaal reer Soomaaliland kumaakum aan ogaho baraha bulshada had iyo habeen sida ugu jiray cirada ku tasbiixsan jiro cira aflagaadeyn jiray oo qaranka oran jiray qaranka uu gacan galay wallahi ilaa xalay inaan maxan bariyo oran أنا وحسيت إن حسن الشيخ محمود بقول كدمة ورقار سومالي أنا أنت عاسق وعنطي واعترافك كحوم وبقول كدمة حين نجا كلنا اعتراف هلنا إيش أنا إنه كين حين نجا بحنا بقول بنو كتير صرنا حلقة زي مدهراتين قداد وينتي
وقاد وين محن كاغا باخني ماشا calankaad gubaysana dad Israa'iil baa leh aan ma lahayn Israa'iilna dad waa laandheerayaasha ilaahay wuxuu abuuray waa reerka ugu laandheer intaasoo nabi tirsada marka waxa weeye anu buur ku tirsada maxaa aniga ka galay dameer aan saaran maxay dhulsadiisa iga qaaday weligaaba mutaharaad 7 jeer ku celi adiga iyo tukrigaaga iyo كون حنا صحراء سيناء لقى هايستو ما نقام مركي ما مدحويني ما جرتي عبد الرحمن بالو عني لبا جير marka waxa weeye xaqiiqada marka laga hadlo waxaan leeyahay qadaad weyn war maanta nin buur ku tirsan maanahay adduunka iyaga haga aniga maxay ka garan anu Falastiin ma la weeraray anu Falastiin waa dad islaam ah taanu lama weeraray yahuud laakiin waa iska shanayna adduunka meeshaan doonaan ku dagayna yahuud baadin ictiraafta adal yahuud waayo macyaar baasta oo reer bani Israa'iil قالada bila kitaabka soo moogdinayay uu ka dhaw yihiin oo ahlu kitaab yihiin muuminimo ninkan kugu dhaqayn muslimnimo ninkan kugu dhaqayn muuminimo khaasa qaar maxasta ku dhowrood magastaa dhaama xasan sheekh maxamed aniga iyo wallahi du ilaahayna la soo mid lama hadlayo yuhuuda ayaa la dhahaa muslimku yuhuud bay u nacibi nimanka Soomaaliya jooga haday igumaadi karayaan biyo iime ka badan wallahi ma saxdan kooreen walaalbana Soomaaliya baan war min hin Soomaaliya anaga Soomaalinimo ka dhignay jareer yahow adigoo lagu xamaashan Soomaali ka dhignay oo ku nidhi kaale war ictiraafkii baan ku sidnaa oo 5 dawladoodna aqoonsadeen ayaan kula nimid oo kursiga qaramada midoobaha haystaan kula nimid maadaga ciidaha waxa ay Talyaani ma lagu ictiraaf qofku ictiraaf ma jira kursiga qaramada midoobaha ku leedahay ma Soomaaliya ismidaysan ma lahayn mise waqooyi baa lahaa waqooyi baa iska lahaa British Somaliland baa lahayd yaa lahaa marka waxa weeye maantana ku joojin maayo runtaan ku sheegaya waliba Abraham Cordna waan ka mid ahay sagaalka dal ee waaweyn Abraham Cord ku jirana maanta waan hay irana weekend buu baxay soo saxaya وسداد كوتشوتي إمارات كو موروكو السودان إثيوبيا مريكان لمان فرانك كود وحكوتشيرو أوران وحير أي ليهين سن كانوا ولا طلعوا سوماليان اعترافان وسداد يبسو تشوتشا طبعا هو إذا دي عم برد عن شتوص markaas taasi wata talabaadna ee hambaliyadii dirna ilaa xalimaanaan seexan waan xiiqsanahay nafax baan taaganahayba anigu ilaa xalis suuqan saa u xurta calanka dhacsita wallahi adaa soo dhacsaday sanka taag adaa soo dhacsaday halkan bay jirircoonayaan markay soogaan bar jirircaad ee kuwii joogsan laga waayay والله أبو ذا شيء عوني مركز كانوا دريس كحلان وأنا كفر حسنه نما بدنا أفريقيا هو شو ورك الله سودانيسك أيام ما أنت دريس كيجا مركز قار كان يجري وما أنت همبليني ما شاء الله قال بوح يرجع صوت رموان دو سلام يا مركز وحوي أنا إلهي باتة مرتب ماشي باش وهبين لا كان قولة لله كان أنا صاحب كان حنا نيجي ويدينه دواب تياشة أراد تياشة ماشي هيست أنا أعرف رب الله وانا هاي أصلي ما كهبرون السكول الله يعني هبين لا تكاهي ما أنا جاي ورم قولت مركب وحوي وأنا ما كوا لانديره ولا يبي له ولا لانديره لانديره أنا ما تقول ده هبرون سو حوصي دير هبين لا نمو وردكم الله إذنكم الله
rag baa muraaro dilacsan oo islahaa waan yar kaftamaya ragna waxa islaan reerka la yidhaahdo weliba siiba habar yunis shaashada ha laga waayo hawada ha laga saaro Soomaaliland weligood iyo madax ka noqon hadda waa reerkii dalka xoreeyay laakiin rag ismay lahayn ictiraafkii keeni ya nafsigu maxay nafsigu waa cajiib nafsi maalku geediga hayinku ku gura baalka nafsiga la waa cajiib reera iyo qabiilo dhan oo reer shaqs xaqa waxa ay ku tashaday inaan weligood habar yunis noqon madaxweyne dalkana hogaamin riciyadna ay ka ahaadaan la isma lahayn garxas baa ictiraafkeeni waa adduunyada iyaba waa cibaaro anagu laakiin cudad maanaan qabin qolada arabska waxaanu ahayn lambar tireega laakiin dad baa cudad qabo ilaa xalay albaabada hoosta ka xidho ooyay anagu masaakiin baan qolada arab wallahi waan iska nahay happy baan iska nahay qaranka ilaa xal waan wurdeynaa way ana qaranimaana deeqda qof nacayb iyo qabiil nacayb midna ma naqaano marka waxa weeye dawaa alxamdulillah garxas hadday dalkana xoreeyeen madaxweynahoodii gudoomiyihii asanaba ugu horreeyay maantana ictiraafkii keeneen daana waxaanu arabnay 10 sano naga gudooma 10 sano oo kale latano wax maxamed watan saaxiibatayna ha koodi baan ka wada nimide inoo dah Musa Cabdullahi inoo dah marka waxa weeye أنا حتى أنا عرب نهاي عبد الرحمن محمد عبد الله طبعا سنة وأنا قلت يا وأنا سومالني ما نتشعله قرني ما نتشعله نكا كياني اترافي سومالن حوي واحد شرتي مرة عبد الرحمن تركيا وقتي بركض ماضي دلكو حري وحلوق طري ولا بس سنة عبد الرحمن محمد عبد الله هو طبعا سنة و10 sano cidna kama shamay garxasna weydiin maayo cidna weydiin maayo qof kasta oo dameer leh isagoo halkiisa joogo oranaya madaxweyne kugu maalin 10 sano naga gudo marka waxa weeye qarannimo ina deeqda farxad anu ma naseexanba waan kala badanayba qoladeeda arab ilan qaranka buu Ilaahayna jeclaysiiyay maxaana curfi cod nagu wata war ninka intiisa waan u qirayna ninka soo Soomaaliya wuxuu soo kordhiya waa u qirayna intiisa marka waxaan leenahay madaxweynahan hor u socda dhamaan shacbiga Soomaaliland waxaan leenahay meel kasta joogtaanba balankeenu waa inoo 10 sano ee dambe iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi rag iyo dumar ba taasaan ku soo boornay inagoo qolaba qaadanahay shakhsiyadiisana ku qaadanay shacab fariyo 30 sano waxaan dhigteenaasi iyo qalbigeena iyo niyadeen raadinaysay ayuu keenay ma waxaan ku diidi doonaa sidii caadadu ahayd waa garxajis bari baa aniga Cabdiraxmaan iyo Faysal oo hal gaari wada saaran ayaan magaalo kamida gobolkan Hargeysa u dhaweyd degmo u dhawaan tagnay ina yar baatiri si qaado inantii baan dhexda markaan marayno kunne ma Faysal iyo Cabdiraxmaan ka bagaranayso waxaan ku adeeray u cidmata markaas u cid waanahay laakiin waxa lagu dhaaf Faysal waa nin wanaagsan laakiin waa garxajis wallahi billahi tallahi inaan been sheegahay marka hadhow hay oranina Cabdiraxmaan ciro waa garxajis ictiraafkii buu keenay hor u socon leena aadna waan idin salaamayaa khayr baan isku ognahay balankeen waan isla rognaa ablihii reer shaqs saxaab inan baan xalay aad ugu farxay waxaa jiray aan wax kale awood ma lihiye meherkayga free ka dhiga hablo meherkiina free ka dhiga intaan sanadka cusub dhamaan inantii la guursaday meherkeedu waa free la socda
odayaashana na soo shiishiida